السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin la wadaago dhacdo naxdin leh oo ka dhacday Puntland hooyo Soomaaliyeed oo 70 jir ah oo meel ay jaan iyo cidhib dhigtay la maalin dhan la raadinayay ayaa ugu dambeyn meydkeedii la helay hooyada Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Karuro waxaa la sheegay inay beer ku lahayd deegaanka Sherbi oo uga shaqayn jiray nin Oromo ah oo Itoobiya ka soo jeeda ugu dambeynna uu dilay meydkeedana uu ku qariyay meel beerta kamid ah oo markaasi uu ka soo baxay doog badan oo meydkeeda ku qariyay baadidoon dheer kadib iyo kala orod waxaa lagu guuleystay in meydkeeda la helo ninkiina meesha uu ka baxsaday xogaha hordhaco ka soo baxaya halka ninkaasi uu ku dambeeyay laamaha amniga oo sheegayay ninkaasi gacanta lagu soo dhigay oo deegaano Puntland ka tirsan isagoo si carraya lagu qabtay ayaan idin la wadaagi doonaa hadduu alaymo waxaan dhinaca kale rabaa inaan dul istaago maanta waa 16 Oktoobar waa maalintii mucaaradku ay horay u shaaciyeen in ay dhigi doonaan dibadbax oo ay ku dhigi doonaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan waliba madasha mucaaradka ee samata bixinta la magac baxday uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed haddaba maxaa ka socdo magaalada Muqdisho xaalkeedu waa sidee ma dawladda federaalka ayaa ku guuleysatay amaradii ay ku soo rogtay dibadbaxaasi ma mucaaradka ayaa waayay badad iskugu soo baxo miyaa la qabanayaa waxa weeye dibadbaxaasi maxaa ka socdo magaalada Muqdisho xogihii ugu dambeeyay ayaan iyadana soo qaadan doonaa dhinaca kale waxaa si weyn la iskugu diidayay hanaanka doorashooyinka ay u qabsoomayaan dawladda federaalka wali waxay ku adkeysanaysaa doorasho dadweyne ama doorasho qof iyo cod mucaaradku waxay leeyihiin suurtagal ma aha haddaba dalkeena maxaa dan u ah ummadda Soomaaliyeed maxay taageersan tahay shacabka Soomaaliyeed maxay doonayaan ma doorasho qof iyo cod ayaa dan u ah mise waxaa dan u ah doorasho dadban iyo teennada efisyoon iyo xirada xalan ee magaalada Muqdisho iyadana bal falanqayn kooban ayaan ku samayn doonaa hadduu alla idmo soo dhawaada idinkuna muuqaalka like saaro aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga aan ku bilaabay dhacdo argagax badan oo aad iyo aad u naxdin badan ayaa ka dhacday deegaanka Sherbi oo ka tirsan Puntland hooyo Soomaaliyeed 70 jir lagu magacaabi jiray Karuro ayaa meydkeeda laga helay deegaankaasi maalin dhan ayaa hooyada la raadinayo meel ay jaan iyo cidhib dhigtay beer ayayna ku lahayd deegaankaasi Sherbi waxaana la sheegay inuu uga shaqaynayay nin Itoobiya ka soo jeedo Oromo ah uu uga shaqaynayay ugu dambeynna uu halkaasi iyadii ku dilay qayb ka mid ah beertana uu meydkeedii uu ku xaseeyay baadidoon dheer kadib kala orod waxaa lagu guuleystay in meydkeedii hooyadaasi Soomaaliyeed allaha u naxariistee la soo helo waa dhacdo naxdin leh waa dhacdo argagax badan waa dhacdo run ahaantii murugadeeda wadata weeye oo hooyo Soomaaliyeed 70 jir dhulkeeda ka xamaalanaysay beer meesha ku lahayd beerteedana uu ninkaasi waxa weeye ajaanibka uu ka shaqaynayay wuxuuna go'aansaday inuu kurka ka jaro uuna dilay intuu dilay buu waliba meel xuso si aan meydkeeda naqsa loogu arag ayuu ku xaseeyay waa la baadi doonay waa la raadiyay meydkeedii ayaa la soo saaray waa deegaanka Sherbi ninkii goobta uu ka baxsaday laakiin wararka la soo gaarayo ayaa sheegaya in laamaha amniga Puntland ay ku qabteen magaalada Qardho wayna weegi doonaa ilaahay ha u naxariisto hooyada Soomaaliyeed wixii ka soo kordhana muuqaaladeena dambe ayaan idin kula wadaagi doonaa dhinaca kale maanta waa 16 Oktoobar waa maalintii madasha mucaaradka ee samata bixinta Soomaaliya ay horay u sheegeen inay dhigi doonaan dibadbax ballaaran oo ka dhaco gobolka Banaadir waana maanta oo 16 ayaa la joogaa haddaba dibadbax miyaa soo baxay ilaa iyo waqti xaadirkan oo hadda 8 iyo waliba qadar daqiiqada ay ku sii siqayso 8 subaxnimo ama 2 subaxnimo midka uu taqaano iyo waliba qadar daqiiqada ay ku sii siqayso wax dibadbaxa oo magaalada Muqdisho ka socda ma jiro xaalka magaalada Muqdisho waa degan yahay waxayna u muuqataa in mucaaradku aysan maanta u suurtagelin inay isku soo baxyo ay sameeyaan wax dhaqaaqa oo hadda ka socda magaalada Muqdisho oo la xiriira banaanbax ama dibadbax mucaaradku ay dhigayaan ma jiro waxaan moodaa inay markaasi ay dhaqan gashay awaamirtii dawladda federaalku ay ku soo rogtay inay wax dibadbax uusan dhici karin iyo sidoo kale baaqi ay u direen shacabka Soomaaliyeed ee ahaa
waxaa isku soo bixina ee danihiina ilaashada. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya oo shalayto hadlayay Axmed Macalin Fiqi ayaa yiri ma jiro wax iskugu soo bixi doona oo dada mucaaradkuna dadba ma haystaan u soo baxa in yar oo ay lacaga siiyeen $4 iyo $5 ayaa jiray. intaana waxaan ugu baaqayaa inay $5 qaataan guryahoodana ay ku sugnaadaan. tii ayaad moodaa inay muuqato. dhanka kaleeto waxaa aad la iskugu hayaa hanaanka doorashooyinka ay u qabsoomayaan. doorasho qof iyo cod ah ayay dowladda federaalku ku adkaysanaysaa inay dalkan uu ka qabsoomi doono, halka mucaaradkuna ay leeyihiin maya ma suurtagelayso oo doorasho qof iyo cod ah maba dhici kartaba ay leeyihiin. haddaba maxaa dan u ah ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed marka laga reebo siyaasiyiinta danleyda? maxaa dan u ah shacabka Soomaaliyeed? waxaa dan u ah doorasho qof iyo cod ah oo ay kula xisaabtamaan qofka ay soo doortaan. tusaale ayna siinaya, qofka waa soo dooratay maanta, fartaada ayaad ugu codaysay. haddii uu kugu xumaado 5 sano berri way dhammaan, meeluu ku soo noqdo male. waxaa sugaysa doorasho dadka in laga dhaadhiciyo waxqabad la doonayo. meeluu ku soo noqonaya male haddii uusan waxba qabanin 5 sano ee uu joogay, haddii uusan dadkiisa waxba la qaybsanin, dhibaatada la qaybsanin, garab taagnayn, kusoo noqonin deegaankii laga doortay, meeluu ku soo noqonaya male. maanta sida wada ogsoontiin waxaa jira xildhibaano deegaankii laga soo doortay maalintii loo codeeyey ay ugu dambaysoon dib ugu laabanin. hal qofna aan shaqo geynin, hal qof oo dhibaataysan aan qaaraan ururinin, hal qof oo dhibaataysan aan waxba ka wakiilanin, hal qof oo waxa weye meel la qorayo ama shaqo la qorayo aan wakiilanin, dadkiisii ka cararaya. qof bini aadama oo dhulkii laga soo doortay aan waxba kala hadlin baa jira. xildhibaanada iyaga marka haddii doorasho qof iyo cod ah ay kusoo bixi lahaayeen way cabsan lahaayeen, aad bay u cabsan lahaayeen. dadka marka Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay ku habsatay muddada 40 sano ah ee dowladoodii ay burbursanayd, maanta waxay dhibaatada kaga bixi karaan midnimo iyo sidoo kaleeto in qofka ay rabaan ay fartooda ku doortaan. waa dadka Soomaaliyeed. danleyda siyaasadeed maxaa dan u ah? danleyda siyaasadeed waxaa dan u ah teendhada efisori oo lagu laabto, waxa weeye xildhibaano dhowr oo tiradooda ay garanayaan oo ay iibsadaan oo lacagihii waagi hore ay boobeen ay ku gataan. waxaa dan u ah waxa weeye wax la malmalooqay oo aysan masiirkiisa iyo go-aankiisu aysan lahayn shacabka Soomaaliyeed ayaa dan u ah. hortaana yeeli karnaa? maya, lama yeeli karo, lama qaadan karo, macquul noqon mayso. dowladda federaalku markaa haddii iyada naftarkeeda danteeda ay ka aragtaa, madaxda dowladdu dantooday meesha ka arkaane, laakiin dadka Soomaaliyeed go-aanka ayagaa iskale. go-aanka ayagaa iskale. dadka 1 milyan ee hadda gobolka Banaadir iska diiwaangeliyey ee laga yaabo in madaxweyne xasan uu doonayo, laga yaabo uu arko inay tahay fursad uu kusoo laaban lahaa, laakiin go-aanka ayagaa iskale. qofkay u codaynayaan iyagaa iskale. hadhow markaad leenka gasho oo aad codaynayso, go-aankaadaa iskale. cid ku khasbi karta oo ku dhihi karta kanuu coday kana ha u codayni ma jiro. kuma dhacaan, kuma dhihi karaan. waxaa la rabaa marka in ummadda Soomaaliyeed ay taageerto waxa shacabka dan u ah. dad badan baa laga yaabaa inaysan fahamsanayn doorashada qof iyo coda kolba kuba kusoo bixiye maxaa waxa weye dano igu jira. danta kugu jirta waxa weeye qofka aad rabtid inaad doonato, qofka aad rabin inaad meesha ka saarto, qofka shalay wax kuu qaban waayey inaad iyo kamaanta ka shalay ka daraad wax kuu qaban waayey iyo ka shalay wax kuu qabtay inaad kala saarto kala aqoonsato. midka dadkiisa u naxaya iyo ka aan u naxaynin inaad kala aqoonsato kala saarto oo fartaada ku kala saarto. waxa kala maaha qori kuma kala saaraysid, nacayb iyo kicin bulsho kuma kala saaraysid. adoo aamusan oo aysan cidna ku ogeyn ayaad fartaada ugu codaynaysaa, fartaada aad ku kala saaraysaa. waxaa la rabaa marka bulshadu inay arrintaa ku baraarugto. waxaa la rabaa marka bulshadu inay taageerto. waxaa la rabaa marka bulshadu inay